boqol iyo lixdan kan arday ayaa noqonaya dufcadii lixaad ee ka qalin bedelata jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe. Ardaydan ayaa ka qalin jabinaysa kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda lagu barto. Munaasabadii lagu shahaaday guddoonsiinayay ardaydan waxaa kala qayb galay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, golihiisa xukuumadda uu horkacayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir Aw Yusuf Ciise, maamulkii macallimiinta jaamacadda. Ardayda maanta qalin jabintooda loo fadhiyo oo isugu jira wiilal iyo hablo, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugorintii waxaa hadalkaasi iba furay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe, Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, isagoona u mahadnaqay marti sharafta kala duwan ee munaasabadaasi ka soo qayb gashay. Dareenka farxadeedna la wadaagay ardayda maanta qalin jabinaysa. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland oo xafladan jaamacadda Bariga Afrika iyo ardayda ka qalin jabinaysa sanadkan ardayda qalin jabisay sanadka 2017 inuu nagu sharfay ka soo qaybgalka xafladan. waxaa yeelay madaxweynuhu ardayna uu soo ahaan jiray ilaa heer professor jaamacadeed uu ahaa. marka xafladan ardayda qalin jabinaysa qiimaha ay ugu fadhido waa uu ogyahay isaga bayna ka og. waxaan rabaa iyagana inaan u hambaliyeeyo ardada ka qalin jabinaysa jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan faraca magaalada Garowe oo saaka aynu u fadhino inaan ku maamuusno oo aan kala qayb galno farxadda qalin jabintooda. dhammaantii macnaha ay dhammeeyeen heerkii koowaad ee shahaadada jaamacadeed ay dhammeeyeen ama bajularka ay qaadanayaan. ardadaas waa u hambaliyeynayaa, waa u ducaynaynaa, waxaana u rajaynaynaa maadaama ay gaareen heerkii hogaaminta. ardaygu maalinta uu ka qalin jabiyo digriga ugu horeeya jaamacadda uu qaato waa hogaamiye. madaxa imtixaanaadka ee arrimaha ardayda jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe, Cabdilaahi Wacane, ayaa ka sheekeeyay horumarka baaxadda ay ku talaabsatay jaamacaddu intii ay dhidibada u taagneyd. waxaan soo koobayaa oo keliya horumarka aan jaamacadahan iyo oo aan samaynay. runtii labadii sano ugu dambeysay isbedel aad weyn baan samaynay. isbedelkuna wuxuu qasab ku yahay sidaada marka meelaha goobaha waxbarashada iyo goob kasta xataa business qofku wax gadaya waxaa qasab ku ah inuu caalamkana la socdo isbedelo oo howlgal ah oo xoojinaya waxa uu qabanayo inuu ku daro sameeyo. marka anagu jaamacad ahaan sidaas kale waajib waxaa nagu ah inaan la socono isbedelada caalamka socda. waayo waxaanaga waxaan qosay waxbarasho weyn. Cabdiwaaxid Xaashi oo kamid ah aasaasiyaashii jaamacadda kana mid ah mas'uuliyiinta boardka jaamacadda Bariga Afrika ayaa ka sheekeeyay aasaaskii jaamacadda iyo guud ahaanba inta ka qalin jabisay intii ay jirtay jaamacaddu. jaamacaddan 1999 markii la aasaasay raggii aasaasay rag badan baa maantayna ka hooseeya. raggaasi waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo loona duceeyo. waxaa ugu horeeya allah u naxariisto firdaws alaclaana allah ka waraabiyo sheekh cabdiqaadir nuur faarax. waxaa labeeya sheekha doctor cabdiqaadir maxamed cabdallah gudoomiyihii koowaad ee jaamacadda markii la aasaasay. waxaa ku xiga sheekha doctor axmed xaaji cabdiraxmaan oo ah ku-xigeenkii gudoomiyaha doctor cabdulqaadir iyo nin ayan dadku aad u aqoon oo askariga qarsoon ama jundi majhuul lagu yiraahdo carabiga maxamuud axmed xasan fool cadde loo yaqaano waa raggii aasaasay. waxaa ka qalin jabiyey 10,000 oo arday ka badan oo darajada koowaad oo bajularka iyo masterka iyo diplomka isugu jira. dhankiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir Aw Yusuf Ciise ayaa ducada daaran siiyay ardaydan maanta qalin jabinaysa. waa jaamacad runtii aad iyo aad u soo dadaashay, mid fiican dhashay ilaa maantana si joogta u soo saaraysa arday sanad ka dambaysa. waana fiican tahay runtii bulshada markii la rabo in la bedelo waxa laga bedelaa xagga cilmiga laga bedelaa. gabagabadiina waxaa xafladaasi soo xidhay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, isagoona ardayda ku booriyay inaysan waxbarashada halkaasi kaga hadhin ay sii wadaan. waxbarashadu wax sahlan maaha. qofka marka CV-giisa la eegayo oo la leeyahay 4 sano oo soo dhamaystay waxaa la tijaabinayaa oo la fiirinayaa maaha
waxa uu yaqaano oo uu bartay kaliya maaha qofku inuu dulqaad 4 sano ah oo soo kalaho oo habeenkii goor dambe uu ku gaaro soo jeed taa laftigeeda ayaa qiimeyn leh marka waxa la qiimeynayaa oo maanta hambaryada la leeyahay waxa weeye waa shaqada tirada badan oo adkayd ee aad soo marteen 4 sano weeye waan idinka hambaryeynayna madaxweynaha Puntland iyo maamulka jaamacadda ayaa ardayda kaalmaha ka galay halkaasi ku guddoonsiiyay shahaado sharaf ay muteysteen telefishinka caalamiga ee SBS ayaa dareenkooda fursad u siiyay inay ardaydani qaarkood dareenkooda si kooban u cabiraan waa Shukri Cabdullaahi Maxamed waxaan ka qalin jabiyay maanta jaamacadda Bariga Afrika kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka iyo maareynta ganacsiga waxaan ku faraxsanahay inaan riyooyinkayga mid kamid ah maanta kamid dhaliyo waxaan soo kale ku faraxsanahay inaan ahaa ardaydii kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka iyo maareynta ganacsiga ardaydii ugu sareysay taasna farxad gooniya si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa waalidiinteedii heerka ay soo gaarsiisay aad iyo aad noola soo dagaashay waxaan leenahay mabruuq hambaliyo magacaygu waa Shaakir Jaa Maxamed dhameeyay kuliyadda sharciga iyo daraasaadka islaamiga aad baan maanta ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaan xaqiijiyay hadaf kamid ah أهدافتيدا. بارش جراندونا أدبان أقول فرح سناي شعوب تدنا لو سو كبكر وما نتي أقول رئيسي عن يونيفورم كنوع أنا عن حرته the first time ممرس جارة بيتا مال ما كله أد بيجد وانتاي وأنا ما سنتين تفيجا أدبان وما سنت سلام. عادة بريق أفريقيا وأنا ميجي ومدرسة 4 سنة على سو كفاحي وحبرشة لا هي بان سبحانه وتعالى مركب وادقو مهنقيا كلية سراكيش عافمات كان وكيل كارفيس ريسكا ما أنت ومانين فرنتي دريمي في حد عضو بلارن dhammaan ba asxaabta kale ee gala qalin jabisay jaamacadda kuliyadaha kala duwan oo aan balyeynaya maanta farxadeeda lama soo koobi karo magacaygu waa Sidir Rusama Cabdullaahi faculty CD maanta waxaan mahadcelinayaa dhammaan asxaabi ehel intii gala soo qayb qaadatay heerka amaanta joogo sanaay farxadeeda ma soo koobi karo alxamdulillah marka ku xigtay waxaan salaamayaa dhammaan maxaa la dhahaa galaasmintigayga iyo familygayga waan salaamayaa anoo shucuurteeda cabiray maanta aan cabiri karin shucuurteeda محمد أحمد شامع محمد بدانشي تلفزيون كعالمي SBS قروي